maanta waxaan idinka daba geyn doonaa updateski ugu dambeeyay showga caawa ka dhacaya Minneapolis ee Sharmaboy. Aniga shaqadeeda waa muuqaal qanciyo oo qurux badan, adigana shaqadaada waa subscribe, comment qurux badan iyo weliba heer. Baahay barnaamijka maanta idin hayo waxa waaye waa barnaamijkii showga caawa dhici doona United States, gaar ahaan Minnesota. updates fara badan iyo xaalado fara badan baa idinkaga hayo idinka daba geenaya. laakiin intaan u gudagelin waxaan rabaa inaan fikirkeyga ku darsado dood xogaha taagneed oo ahayd Sharmaboy guddiga kaniisadaha miyaa mise ururka kaniisadaha waxa qaaday nabiga ku salliyo Soomaali Maxamed Allahumma salli ala sayidina Muhammad. macnaha gaalan wax ka rabaa, macnaha waa food maraqa waa cabaa foodkiisana cuna mi ee sheekadii, macnaha gaalna waa ka rabaa xafiisyadiisa lagu tagayana shaaftaanka ka caamab isgashabee. macnaha Sharmaboy imaaraadka mu aaday markaas bin Dulaab iyo bin Ismaaciil iyo bin Umar iyo afiisiyaasha iyo xafiisyada saxiixa saar la ilaa waxaan waa process fanaanka markii lagu keenayo concert uu qabanayo oo la keenayo ilaa iyo dhowr xafiis, 8 xafiis, 9 xafiisooda kala mid walba saxiix ku sii dhufana kadib wixii confirm immigration laga soo saara hawl sahlan ma hawl oo Soomaaliya ka bixi kartana ma. macnaha hawshan nin dhalada wadanka joogo xafiisyadii wixii faashan hadalkiisa shaqeynay mideeda kale xogaa meesha madow waxta marka taay reject waxa iska jiro meesha Mareykan la dhahaa. marka dadka Yurub jooganayo waa fahmayaan in Mareykan dadku ku nool waa fahmayaan cayrta la bixinayo guriyaha marka kireysanaysid lawyer marka rabta free lagu qabto dad xataa even waxa jiro markii sharciyada loo diido dad intay hay'adahaas gacanta ku dhigaan iyaga ay dawladda u doodaan lawyer u qabtaan lacag ku bixiyaan hadhow qofka sharci u soo qaadana jirto. أنا وبرهم يوربي رهم مريكان فانسنتين لا سرير ودن كجوا وحن ليه أروى ريالو عير تلقادنا أيو حفيسية للجرايو جريها مركي الراد سنة أيو هؤلاء مركي كوسو أتكادان ضد كان أو ضد كساعدين أيو بقولك بسديتهم وضد كنيسة إيميل الدر هرتور من كسياسة اللي جير الدمعسية هاي ضد كان إلا سوجي تعال وأسك فهم كرنا لكن سوى ودع الجرو معناها سووا هذا ودع الجرو واي حفيز كحفيسية دان إيميلها اللي مرة بروسيسين كل مرة على دحقليه معناها si ay loo sii dhexmaro waajib laga dhigay oo ku qasbantaa. marka intaas aan kaga gudubno anaga muhiimadeena waxay tahay fanaanka iyo bulshada meeshaas ku nool inay is arkaan waqti wada qaataan. ma fahanti intaas anaga muhiima waayahay maxaa cusub maanta idin hayaa marka showga caawa soo galaya diyaar garow far badan baa dhacay. heesaha qaarkood waxaa loo qaadi doonaa live, macnaha waa concert caadi ah kan waay live si live loo qaadi doonaa. maxaa marka la sii sameeyay ama idin hayaa waa diyaar garowgii heesihii baa waxa isla fahmayo fanaanka iyo dadka muusiga garaacaya maadaama hadhow qaab live loo garaacayo fanaanka iyo muusigiistayaasha waa inay is arkaan oo is fahmaan oo macnaha wax la isla meel dhigo. bal heesihii marka qalliinka lagu sameeyay ama editing lagu sameeyay ee meeshan si live loo qaadi doonaa waxay ka tusayaan Soomaaliya waa hees kamid ah heesaha showgaas lagu qaadi doono, waana heesaha editing ama qalliinka lagu sameynayo. macnaha waxa waaye fanaanka iyo muusikiistaha waa inay isfahmaan heesta teembadeedii qaabka u soconayso fanaanka waxaas oo dhan iyadoo practicum lagu sameeyay baa la tagaya live-ka showga markii live-ka loo qaadayo fanaanka iyo muusikiistayaashu isla socdaan. laakiin muusikiistaha haddii aadan heesho weligiis tumin aad dhahay showgan igu tun ma soconayso. heesta Soomaali baa leh waa heesta koowaad oo u diyaar garoobi doontaan qalliinkiya ku socdo ayadoo anada waji kala muusiga saa ku barateen ma ayadoo nooc kala ah ama taqaana ay meeshaas laga qaadi doona. waayahay ma socona nooc kala odayga ma ku jirnaa la dhahay Sharmaboy forteen ba caadi u baxay u kaadi la yiri ma ku jir ayadoo qaab caadi loo qaaday marka waa kana ayadoo qaab caadi loo qaaday waa kana
kasaa ma soconaa iyadana waxay kamid tahay heesaha qalliinka lagu sameynayo ee habeenkaas live-ka si live ah looga qaadi doono showga. way dhici kartaa heesaha qaar maadaama music iyo qalab dhammaystiran oo hadeer dhankaas yaalaan iyo studio kaamil ah in heesihii hore remix ahaan lagu soo sameeyo oo dib loo soo cusbooneysiiyo way dhici kartaa. laakiin heesahan 80% waa heeso lagu diyaar garoobayo showga in si live ah dadka loogu qaado musicistayaashana ay si live ah u tumaan. waaya tan ma garan karo inay hees cusub tahay sida aan dareemayana waa hees caadi ah oo beatkeedu caadi muuqaalka uu saaran yahay sidii tii hore kale la garaacay maaha. marka laga yaabaa heestaas in hees cusub tahay oo soo socoto in ay dadka qaar isaga soo baalkeeyeen waa dhici kartaa. waaya tan oo kale okay waay tan caadi loo tumooyaa waa sharciga bara saa uma inay tan sharciga bara inay tahan jeclahay heestaas oo qalliinka ku socda ama editing lagu sameynayo. waayahay aan ku socono caadi ah tan loo tumooyaa waa dareemaysaa ساعة ما soconayso fiiri adiga gitaarka meesha markii la marayo joojino adiga muusiga bugtaan qafiif ka dhigno heesta saas waay dhageysta oo rafaada meesha ka jiro easyga macnaha markii oo la isku soo rafaado oo heesta la isla keeno oo ninkan uu qaaday nimankan ay tumayaan la soo duubooya laakiin meesha waxa ku jiro rafaada ku jiro adiga fiiri qaybtaan jagtan ka dhaafno saan ka dhig wal isku soo way وايه طبعا waxaan dhigi karnaa eesihii badnaa ee 20 jirka adag bir iyo wadanku shaqo ma laha loo yeelo iyo heesa badanaa maqabeeyay waxa waaye oo ya Puntland iyo Djibouti iyo heesa badanaa maqan laakiin waa laga yaabaa in heesihii la qoondeeyay showgaas in laga qaado in hadda qaleel lagu wado. heestan waa garanaysaan waa heestii sax meel bay ka akhrinaysaa hadda naagta waxaan weydiinayaa macnaha music waa qoran yahay naagta meel ka akhrinay ka war meel ka akhrinaysaa ka war waa music qoran macnaha oo diyaarsan bo marka intaasaan kaga soo gudbay si qalliinka lagu sameynayo. sidoo kale fanaanka Sharon Boy fanaaniintii reer United States ama reer Minnesota waa kulmeen barnaamijka heesaha loo diyaar garoobay heesaha qaarkood ama 67% heesaha waa heesa si live ah loo tumaayo fanaankana si live ah u qaadayo concert cajiib ah meeshaas ka dhici doono. sidoo kale Suldaan Seeraar isagana kiisa ku xigo kadib haddana 30 July isla Sharon Boy mar labaad soo noqonayo asbuucidan ana update idin haaye idinka meeshaan la igala socdo macnaha shaqadeeda waxa waaye barnaamij ku qurxiyo qurux badan update adigana shaqada maxaa waaye كومنت قروح بدن سبسكرايب يلا يكتب أساس